mirayo dhammaan baa dadweyne waxay ku dhawaaqayaan siyaasiga dhataye waddanka dhiigga u shube wixiisa u mirayo ilkii ku dhibane taageerayaasha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle ayaa maanta maalintoodii toddobaad muujiyay cuuda taageero ay u hayaan xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxaana boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud oo ku labisan calanka xisbiga kulmiye ee socodka ku soo mareen jidadka waaweyn ee degmada Qorlugud taageerayaashan ayaa waxaa munaasabadda kala qayb galay hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliland wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye waxayna mas'uuliyiintan heerkasta kala dambeeyay ay sheegeen dadweynaha degmada Qorlugud ay codkooda siin doonaan 13 November xisbiga muxaafadka ee kulmiye inaynu xisbiga kulmiye u codayna Saudiyaan uma dhiin 23 November soo codan maysan Saudiyaan uma tiidin aad iyo aad baa u mahadsantiin waan idin mahadnaqayaa waxaan idin leenahay kuwa kale degmada ka jirana hal la dhowr anshaxooda inagu nabadgelyada aan ilaalino nabadgelyo aan ku codayno fawdada iyo rabashka la wadana inagu ayayna ka qayb qaadanaan iska ilaalino ilaahayna waxaan ka baryayaa maanta maalinta ku afara in aynu Muuse Biixi oo madaxweyne noqday ugu dabaaldegno geedkan yaan ilaahay ka baryayaa waxaan jecelahay inaan idin xusuusiyo maanta Soomaaliland waxa ku tartamaya xaq iyo baadil qolada wadaniga inaguba waxaynu kulmiye haddii ilaahay ka dhigo waxaanaynu ku dadaalaynaa in codkana dee Muuse lahaa annaguna hawl yar baynu soo qabanaynay hawshina way soo dhammaatay warka wada shaqayn wanaagsan idagana waxaan idiin sheegayaa in afartiina siisaan dee mujaahidka oo mujaahidka loo hiyay xisbiga kulmiye waxay u yihiin ay xisbiga dacalka qabtaane tanahana waa gool xisbiyo daraja dheeraada dugsa dhalinta kulmiye oo yagay doorashadu taan waa Muuse nalka qaran damir mayna waa Muuse nalkan daran damir mayna waa Muuse waxaan ku soo gooyay ku garxiiray Muuse winaan gacan ku sinaaye guushana la ku haye garabko ku buuxsan wuxuu ku dhisay xaqu lacagta keen wax ku dhisay ma been baa la inaga iibinayaa ma waxa jir baa la inaga iibinayaa reer wadaamago Muuse Biixi bay ku yidhaaheen gudoomiye noo dhagax dhig waan ka xisoonayaa buu ku yidhi markaan madaxweyne noqdaan idiin dhigaya maxaan idinku dhigaa maanta hayaa ma been baa sheegaa ilaa waxba dhagaxaan dhigay haddaan soo bixi waayo maxaan kaga baxaya soo beerawaas ma ihi markaan soo baxo ee madaxweyne noqdo ayaan idiin dhisayaa buuggaana waa idinku qoray waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arki waayey wax caalana oo axsaabta kale leedahay oo ka babbanaya magaalada Qorlugud waa farxad aad u weyn waxa aad muujiseen taageeradiina waanad ku mahadsantihiin Talabaan Ilmi Saciid Talabaan Kiko wararka Star TV